markale iyo akhyaaray barnaamijkeena isku xidhka booliska iyo bulshada oo idinka yimaada badana komishanka booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida. barnaamijka toddobaadkan ayaa diiradda ku saari doona waxqabadka ciidanka dambi ka hortagga ee komishanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida, qaabka loo habeeyay isbedelkii dalka iyo deegaanka ka dhacay kadib. haddaba intaanaan gudagelin barnaamijka toddobaadkan ayaa waxaan macno kooban ka bixinaynaa macnaha booliska iyo shaqooyinka ugu muhiimsan ee bulshada u hayo. macnaha boolis marka aan soo ururino waxa uu ku soo biyashubanaya in uu u taagan yahay ereyada macnahoodu yahay edeb u hogaansanaanta iyo adeecidda sharciga, kala dambeynta, hufanaanta, adkaysiga, dhiirigelinta iyo hirgeliyaha sarreynta sharciga iyo ku dhaqankiisa. macnaha boolis ayaa sidoo kale tilmaamaya ama u taagan hay-adda ka hortagga iyo baadhista dembiyada, ilaaliyaha xuquuqda bulshada dhexdeeda. sidoo kale boolisku waxa uu u taagan yahay xasilinta nabadgelyada, ka hortagga rabshadaha sharci darrada ah ee bulshada u horseedi kara fawdo iyo khalkhal amniin. sidoo kale boolisku waxa uu fulinayaa awaamirta ka soo baxda hay-adaha cadaaladda sida maxkamadda oo kale. boolisku waa ilaaliyaha iyo xafidaha hantida dowladda, shacabka iyo la dagaalanka maandooriyaasha kala duwan ee bulshada waxyeeleynaya. waxaan u soo noqdo akhyaaray barnaamijkeena toddobaadkan ee isku xidhka booliska iyo bulshada oo aan ku eegi doono waxqabadka ciidanka dambi ka hortagga ee komishanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida. sida aan ka warqabno dhibaatooyinkii hadda ka hor ka dhacay deegaanka Soomaalida waxaa qayb ka ahaa burburinta hay-adihii amniga ugu horeeya booliskuye, waxaana meesha ka baxay sarreyntii sharciga iyo xuquuqihii ay lahaayeen muwaadiniinta kala duwani. haddaba isbedelkii ka dhacay dalka iyo deegaanka, arrimihii ugu waaweynaa ee wax laga qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa dib u habeynta ciidankii booliska ee deegaanka uu lahaa, sidii dib loogu soo celin lahaa nidaamkii iyo kala dambeyntii, loona xaqiijin lahaa ku dhaqanka sarreynta sharciga ee dalka u yaala. muddadaasi isbedelku ka dhacay dalka waxaa dib loo soo celiyey dhammaan xuquuqihii ka maqnaa ciidanka booliska. haddaba si arrimahaasi wax badan uga ogaano isbedeladii iyo dib u habeyntii lagu sameeyey booliska ayaa waxaan xafiiskiisa waraysi kula yeelanay gaashaanla sare cabdirashiid maxamed colaad, madaxa dambi ka hortagga ee komishanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa. boolis shaqadiisa hadda markaan eegno si fiican bay u socotaa. qaybaha dambi ka hortagga barnaamijyada qalabkoodii oo dhammaystiran baa yaalla. marka maalinba maalinka ka dambeysa yacnii kor bay usoo kacaysaa. dadaal badanna xukuumaddu way gelisay, yacnii qalabkii way soo iibisay, tayadoodii bay kor qaaday, siminaaro badan baa la siiyey, wacyigelin baa la siiyey. maalinba maalinka ka dambeysa markaa xaaladoodii kor bay ayay usoo kacaysaa. ballanqaadkii xukuumaddu marka inay hay-adaha nabadgelyada kor u soo qaadayso waan haynaa qaybtiisii annaga nagu aadanayn. annaguna waxaan markaa ballan qaadaynaa inaan halkaas ka sii wadno oo yacnihii bulshadu inay nabad ku seexato kusoo toosto aan mar walba aan u taagannahay. booliskii dalkaanaho daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo, dastuurka ilaalintiisa, nabadeganaashaheeda, urus badan laygu siiyey. marka waxaan leeyahay qaybta ciidanku saad shalay ugu soo dhabar adeegayseen, maantana inaad usii dhabar adagtaan aliyaa laydinka baahan yahay. doorashadii oo kale hadda si nabadgelyaa bay noogu dhacday, xukuumadda dhismaheedii si nabadgelyaa bay noogu dhacay, shaqogalkeeduna si nabadgelyaa inuu noogu sii socdo ayaan rajaynaynaa. marka hay-adaha nabadgelyada dhammaantoodba shaqooyinkii ay qabteen inay horey uga sii wadaan ayaan fariin u gudbinayaa. shacabka waxaan leeyahay deegaankeena dad badan oo fara badan baa kusoo badanaya, in marka indhihii iyo dhegihii waa iyaga mar walba qof walba qofkan ag taagan haddii aynaan nabadgelyada wada ilaalinin oo aynaan meel uga soo wada jeedsanin, dee dad nabadgelyo darro wada wayna soo dhexgeli karaan. marka aynu si wada jir ah gacmaha isu qabsanno, bulshadeenna iyo booliskeenaba innagoo isku duuban aynu waxaynu kale isku xidhka booliska iyo bulshada mar walba in booliska iyo bulshada oo isku xidhan oo isku duubana hal qof ah dembiga aynu si wada jira uga wada hortagno ayaan shacabkana ku baraarujinayaa. booliskii dalkaanaho daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo, dastuurka ilaalintiisa, nabadeganaashaheeda, urus badan laygu siiyey.
tan aan ku ilaalinayna waxaa weeye waxaa jira wadooyinka taraafikada oo kale taraafikada waxyaabaha sharci darradaasi adag bay ula dagaalamaysaa gaadiidka sharci darrada ay soo gelaya bajaaj hadday noqoto ama ku kale hadday noqoto si gacan adag baa lagu hayaa marka qaybta shacabka ka dhimanna waxaan rabnaa wixii annaga dhinac naga mara in ay xoojiyaan oo aan intaan garabka gacmaha isqabsanno ay iyaguna xoojiyaan marka ilaalinta wadooyinka si adag baa hadda gacan adag baa lagu hayaa qaybaheeda kale ee harsanna waan dhammaystiraynaa keliya dhibaatada hadda ay erey jirta waa cidhiidhiga wadooyinka oo aad moodo inay dhuudhuuban yihiin taana insha allah waa laga gudbi doonaa marka si adag baa shaqada loo wadaa waana la sii wadi doonaa haddii ilaahay yidhaaho booliska dalkaan ahoo deriska waxaan u qaaday dambiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tegay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaan u diyaarsanahay booliska dalkaan ahoo deriska waxaan u qaaday dambiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tegay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaan u diyaarsanahay arrimaha muhiimka ah ee laga dhisay dhinaca booliska waxaa ka mid ah xuquuqihii ciidanka boolisku ay u baahnaayeen si xilka iyo waajibaadka ka saaran amniga ee bulshada ay u gutaan ayaa waxaa ka mid ahaa in ciidanka dembi ka hortega laga dhiso korna loogu qaado ama looga dhisi lahaa dhinaca aqoonta maskaxda jidhka iyo qalabka sidoo kalena loo dhammaystiro agabyada shaqo ay ku howlgeli lahaayeen gaashaanla dhexe weyrax waanis sulub madaxa geedi socodka hoosaadka ilaalinta VIPda gurmadka degdega ah iyo ka hortega kacdoonada sharci darrada ah ee komishinka booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaa nooga waramaya dib u habeynta iyo waxqabadka ciidanka dambi ka hortagga komishinka booliska dowlad deegaanka Soomaalida waxyaabihii laga qabtay xafiiska dambi ka hortagga wuxuu qaatay qorshe ah in bulshada lagu sameeyo isbeddelkaas oo ah ul aan ahayn garaac aan ahayn hanjabaad aan ahayn wacyigelin in lagu sameeyo bulshada xafiisku wuxuu qaatay qorshe ah saraakiisha booliska ugu sarreysay macnaha waaxda dambi ka hortagga in dhammaantood lagu dhaadhiciyo goobaha mataqaanaa hadday gobol tahay hadday degmad tahay hadday magaalada jigjiga tahayba 20 xaafadood ee gaar ahaan magaalada caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida saraakiisha heer deegaanka kala duwan ee booliska ayay waaxdu ku dhaadhicisay si ay bulshada u wacyigeliyaan isku xidhka booliska iyo bulshada looga hirgeliyo amnigoodana loo sugo cabashooyinka bulshadana looga jawaabo ayaa waxaan qorsheynay waaxda dambi ka hortaggu ee booliska dowladda deegaanka Soomaalidu inay bulshada lagu qanciyo halkii qabaleeg ahayd ee u dhoweyd ay joogeen waxaa kale oo isbeddelkii inta ka dambeysay munaasabado badan marxalado badan yaa la soo maray oo soo jiray iyadoo doorashadii 6aad ee dalka dhacday gaar ahaan deegaankeenu uu ka dambeeyay ay dhammaatay ilaahayna si nabadgelyo uu noogu suurtageliyay inay ku dhammaato ilaahay baa mahad iska leh marka koowaad marka labaadna ciidankii iyo xukuumaddii iyo bulshadii nala garab taagneyd mataqaanaa inuu amnigu iyo xasiloonidu ay sii jirto waan mahad celinayaa marka waxaan leeyahay wax la isgarab dhigi kara ma aha isbeddelkii ka hor siday ahayd waaxda dambi ka hortag waxaa kaloo hadda qorshaysan oo macnaha la diyaariyey muxuu ahaa waaxdu ay qorshaysay in ilaa zone ilaa macnaha wixii isku xidhkii oo dhan booliskii bulshada maadaama wixii kale naga dhammaaday macal caleemasaarkii madaxweynuhu si nabadgelya uu ku dhacay waxaa macnaha waaxdu ay diyaarisay oo kale in isku xidhkii booliskii iyo bulshada lasii adkeeyo lasii dardargeliyo dhammaan gobol degmo
caasimadda ciidanka dembi ka hortaguna waan u mahad celinaya ayaguna shaqo waxay qabteen lagu diirsan karo dadaalka la sameynaya waxaa weeye bulshada iyo boolisku inay isku xidhnaadaan dembi ka hortag waa inay booliska iyo bulshadu isku xidhnaadaanoo boolisku keligii waxba dembi kama hortegi karo haddayna bulshada isku xidhnayn bulshadu haddayna warbixintii siinin waxa ka jira mataqaanaa amni darrada keenaya macnaha dembi ka hortag markii la leeyahay waxaa weeye in waxa soo socda macnaha ama waxa dhacay markaa ee dhici raba markuu xogta helo xogta markii la siiyo la helo in laga hortago halkii si degdega loo gaadho wey dembi ka hortag marka bulshadii xogta bixinaysay iyo booliskii horta waa inay isku xidhan yihiin macnaha dembi ka hortag waxaa weeye isku xidhka booliska iyo bulshada isku xidhka booliska iyo bulshadu waxaa weeye bulshadii boolisku inay wada shaqeeyaan wada shaqayn haddaysan jirin wax dembi ka hortaga oo jiraya ma jiro booliskii dalkaanaho arbabatana difaaca warshada aroosma tarafika loo diyaarshay dekada gaadiidka oo dhan danaha guud iyo sharciga ciidanka dembi ka hortaga ee booliska dowladdeegaanka soomaalida ayaa ka howlgala xaafadaha kala duwan ee maamulka magaalada Jigjiga iyo guud ahaan ka qayb qaadashada arrimaha lagu sugayo amniga deegaanka gaashaanle maxamuud waa howlgaliyaha ciidanka dembi ka hortaga ee komishiga booliska dowladdeegaanka soomaalida waa kan isagoo inooga waramaya nidaamka shaqo ee ciidanka dembi ka hortagu ay howlgalaan سيد أكسونتين بكل شقوينكو يهولها اللي وسوا تري أدي أد بوفي عنيهن أيضا هيدها أمني ودمانته يقيبت الدم كورتق أي كودا شقينيين عيدن كحوجة جاركا بوليس كديجانكا يو عيدا ماذا كلام تقنا سيد مليشيا ذا كله تضاعت قدام بيسين قال شقيني يوكل أدي أد بوفي عنيهن شقوينكو هوله اللي وسوا تري يو دور شوينكو وحنا سفي عن أيام نقول عن iyadoo ma taqaanayna waxa yaraatay wax qalalaasi wax ma taqaanayna xuraan amina toona in dhixgal si fiican bay noogu dhaceen marka shaqooyinku aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin qalabkii hadii ma noqoto in ka hortaga ciidanka arrimaha tanaa oo kale qalabkii waxana loo keenay laga hortagay rishbadaha kale hadii loo baahdo ayagoo wax ma taqaanay kale ay yimaadaan oo kalena iyagana diyaar ay u lahaayeen marka shaqada dembi ka hortagga aad iyo aad bay u fiican tahay walow ay bulshadu qayb weyn ay ka qaadatay qayb libax bulshadu ay ka qaadatay aad iyo aad ay bulshadu noogala shaqaysay isku xidhka booliska iyo bulshada la talinta booliska ee madaxa bannaan oo kale ay aad uga qayb qaateen oo ugana mahad celinayna marka haddaan si guud uga hadlo oo soo duuduubo waxaan leeyahay shaqadu aad iyo aad ay u fiican tahay saraakiisha intay howlahan socdeen lagu dhaadhiciyay qabalayaasha aad iyo aad shaqooyin badan bay ka qabteen san kulli aan wada ogsoonahay shaqooyinkaas oo ah ma taqaanaa saraakiilda waxaan waaweyn oo nabaar oo in badan soo shaqeeyay oo shaqadan khibrad u leh isbedel baa ka muuqday intii ay joogaan ilaa haddana wali way joogaan bulshada qaybaheeda kala gedisan bay maalin walba la kulmaan wacyigelin bay ka wadaan maamulkii iyo booliskii meesha joogay bay isku xidh ka sameeyeen aad iyo aad bay saraakiisha shaqo fiican oo la taaban karo ay ka qabteen baan leeyahay iyadoo ciidanka gaarka laftooda ay saraakiil ay ka joogto qabale walba iyo ciidanka booliska saraakiisha halkan laga diray labaduba iyagoo iskaashanaya shaqo wanaagsan ay ka qabteen isbedel baa dalka ka dhacay iyo deegaankaba protocol baa jira qofku inuu ma taqaanaa si xor ah u noolaado ayaa keenaysa uu ma taqaanaa hadda ka hor aan jirin qofku inuu si xorriyada u noolaado gurigiisa asagoo jooga adigoo roondi iska socda haddaad kor marto lafteeda qofkaas wadna walwal baa dilayo habeenka inuu seexanin baa dhici karaysa qabaalkan maadaa lagu soo diray maaduu ku doonaya hadda aday ku joojinayaan nasiiqaad bay ku dhihi waa ku raaci informationka ku siin wixii khaldan baa lagu sheegi marka anu waxaan leeyahay bulshadii iyo booliska iyo hay'adaha amnigu dhammaan si fiican baa la isugu duuban yahay shaqaduna aad bay wanaagsan tahay aad bay hadda maalmihii iyaga u dambeysay hoos u dhac uu ku yimid way jirtaa caasimad baan joognaa bajaaj laxadi iyo tuug soo dhacay iyada la waahi maayo waa la waayo waa la cirib tirayna cidna ma dhihi karto laakiin
waxaan markuu dhaco falkii uu dhaco dembigii in laga daba tago wixii daraasaad la sameeyo meelaha u baahan mataqaana in wax laga qabto la sameeyo aad iyo aad eega kulli waa duubtay maalmo maanta u dambeysay bajaajtiga halka taala xali baa la soo qabtay tukalo geeris taala isla ninka un baxaday ninka bajaajta tan xaday un baa taana geeriskaas u dhigto furfurtay isagina gacantan ku haynaa marka tuug way jirtaa tuuguna waliba eega waxaa jirto kale tuug kale oo casreysan oo inaga hadda ka hor aan ka jirin deegaankeena ama candhuuf yar baa lagu tufayaa ama lagu taabay si indha sharaxaad oo kale yaa dadka looga qaadanaya kuwa laftooda qaybo badan ba ka haynaa baarista gacanta ku haysa aad baa wax loo qabtay baan dhihi karaa bal hal iyo laba noo dulno agabyada aad isticmaashaan nidaamka dambi ka hortagga waxaan u isticmaalnaa sidan mataqaanaa isgaadhsiinta oo kale isgaadhsiinta oo qaybtan icomka iyo qaybta GPS oo kale ah ayaan u isticmaalnaa kolley waxyaabo badan oo dee loo isticmaalana way jiraan fariintan shacabka u gudbinaya waxay tahay sida fiican ee lahaanshaha leh ee uga qayb qaadanayaan amniga ee deegaankooda u ilaashanayaan inay usii ilaashadaan oo wixii ay la arkaanna ay la soo xidhiidhaan hay-adaha ammaanka booliska dalkaanaho deriska waxaanu qaaday dambiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaan u diyaarsanahay waxaa sidoo kale kamarada komishinka booliska ee dowlad deegaanka Soomaalidu ay u kor gashay nidaamka shaqo ee ay xubnaha ciidanka dambi ka hortagu ee ay waajibaadkooda shaqo ay u gutaan iyaga oo aan ku soo warabsanay goobahooda shaqo shaqada dambi ka hortagu horta waxa weeyaan dambigu intuu soo dhicin in laga hortago weeyaan kow ciidanka deegaanka ka howlgala gaar ahaan caasimadda Jigjiga ciidan si fiican buu howlgalaa 20 qabalay buu ka howlgalaa saraakiil hogaaminaysa iyo dhammaan ciidanka 20 qabalay si fiican bay uga howlgalaan shaqada dambi ka hortaguna hadda waqtigan lagu jiray aad bay u fiican tahay meel fiican bay maraysaa oo nabadgelyo magaalada aad bay u fiican tahay 20 qabalay saraakiil baa ku qoran ciidan baa ku qoran ciidanka saraakiil baa hogaamisa si fiican bay u shaqeeyaan haday tahay ciidanka booliska gaarka iyo haday tahay ciidanka booliska caadiga dhammaan ee madhawayaha booliska si isku mid ay u shaqeeyaan oo shaqadooda isku mid tahay waxa laga wada shaqeynaya waa dambi ka hortag iyo caasimadda Jigjiga amnigeeda sida loo sugo lahaa dhammaan ciidanku meel kasta joogaba amniga deegaanka si guud waa nabadgeliyo gaar ahaan anagu meeshan ka howlgalno haddaan ay saraakiisha hogaamisa ciidanka dambi ka hortagga waa caasimadda Jigjiga 20keeda qabalay iyo 9ka jaafka magaalada ka inta waan ka howlgalnaa amnigeedu aad buu u fiican yahay wax dhib hadda kama jiro 20ka qabalay amni la isku halayn karaa ka jira walow ay caasimad tahay haddana kiis aan laga waaynin oo kiis u dhici maantana u dhici barina u dhici laakiin si wax laga qabto baa muhiim kiiska magaalada ka dhaca waa laga qabtaa haday tuugtahay haday wax kala tahay si fiican wax loo qabtaa waqtiyadii hore iyo hadda markii loo dhowrana maanta oo lagu jiro nabadgelyada deegaanku aad bay u fiican tahay gaar ahaan Jigjiga caasimadda waa nabadgelyo guud ahaan deegaankuna amni weeyaan dambi ka hortagana aad baan uga shaqeynaa in badan baa ka soo shaqeynayna amniga magaalada haddana waan ka soo shaqeyn doonaa insha Allah hawlihii lagu soo jirayna si fiican bay u dhaceen nabadgelyo weey waxa weeye hogaaminta ciidanka ayaan ka mid ahay shaqada dambi ka hortagga aad bay u fiican tahay maanta maalin ka fiican tahay ma jirto si fiican ciidamada kala duwan isku dhafanay magaalada deegaanka ka shaqeynaya si fiican bay shaqadu oo hayaan nabadgelyadu way fiican tahay waxayga ma garanaysaa dhibaatooyin ah oo ka jira ma jirto magaalada marka hawlooyinkii iyo shaqooyinkii aanu ku soo jirayna aad bay u wanaagsan tahay walibana waan sii dardargelin doonaa haddii la yidhaahdo booliskii dalkaanaho arbabatana difaaca warshada aroosma tarafika loo diyaarshay dekada gaadiidka oo dhan danaha guud iyo sharciga boolisku waa bulshaduna waa booliska waxa kulligada lagu talagalay hirgelinta barnaamijyada cusub ee dib loo habeeyay ee ay ku shaqeynayaan booliska dalka iyo deegaankuba gaashaanada dhexe Qaasim Jaamac Guuleed oo kamid ah waaxda daraasaadka qorsheynta iyo xog ururinta ee komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaaliya ayaan wax ka weydiinay isbedelada shaqo ee lagu sameeyay booliska si ay u wada shaqeeyaan bulshada iyo boolisku una noqdaan uliya diirkeed tababarkan soo qaadanay wuxuu ahaa nidaamka cusub oo hadda ka faa'iido badan nidaamka hore oo looga shaqeynaya arrimaha dambi ka hortagga
nidaamka hore dambi ka hortagu wuxuu ahaa nidaam aan kaashanaynin bulshada inteeda badan boqolkiiba boqol kadib waxaa la soo saaray nidaam la yidhaahdo social capital wax la yidhaahdo awoodda guud ee bulshada si walba oo ay tahay in looga qaybgeliyo sugidda amniga iyo xasiloonida deegaanka ama dalka oo dhanba marar badan oo wadanka waxyaalo badan oo lagu dhaliilayo gaababka in la saaro performance gaabka waxa la yidhaahdo macnaha kala xidhnaanta bulshada iyo booliska meelaheeda inta badan goldololooyinku ka jiraan in la daboolo ayaa mar labaad waxaa la soo saaray barnaamij la yidhaahdo sara model SARA model sara model wuxuu ka turjumayaa dhibaatada jirta qaybta koowaad waa scanning in la sameeyo in daraasad guud laga sameeyo dhibaatada jirtana la ogaado qaybta labaadna waxa weeye in analyzing la sameeyo la falanqeeyo dhibaatadu siday ku tahay siday ku imanayso meelaha ay ka imanayso cidda keenaysa respond markaa ka bacdi in la diyaariyo qaabkii looga jawaabi lahaa dhibaatadaas looga hortagi lahaa iyadoo la kaashanaya awoodda guud ee bulshada social capitalka qaybta ugu dambaysa waxa weeye assessment qorshihii la sameeyey iyo daraasaadkii la sameeyey xogtii laga soo helay jawaabtii laga bixiyey inay tahay mid ku filan oo dhammaystirtay baahidii guud in lagu daboolay iyo inaanay ahayn ayaa assessment la samaynayaa kadibna waxaa la fixid garaynayaa waxyaalaha harsan iyo sababtay u harsan yihiin sida qorshaha labaad oo plan B-ga looga hawlgeli karo qorshaqada in lagu dhameeyo qodobka saddexaad wuxuu ahaa program la yidhaahdo problem solving sida dhibaatada loo xalinayo kaliya boolisku ma awoodo dhammaan boqolkiiba boqol inuu dhammaystiro haddii aanu awoodda bulshada kaashanin iyo qolada la yidhaahdo partnershipka adeegyada hay-adaha ay khusayso sugidda amniga iyo xasiloonidu iyo nidaamka xog ururinta booliiska in laysku xiro kadibna si guud oo wada jira dhibaatada loo xaliyo nidaamka afraad wuxuu ahaa wax la yidhaahdo oo aan soo baranay private security sectorska waaxyaha ama qaybaha ka shaqeeya nabadgelyada oo laakiin shakhsiyaadka kambaniyada hay-adaha roolka ay ku leeyihiin inay dhibaatooyinka ka hortagaan ayada qudheedana research laga sameeyo kadibna roolkoodana la isticmaalo doorka ay ku leeyihiinna la isticmaalo sida ay u isticmaalayno waxa weeyaan iminka waxaan ka soo qaadaynaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah NGO-yadoo kale waxay leeyihiin shaqaale fara badan oo hub isticmaala oo nabadgelyada suga ayaga amnigooda suga waxaan soo saarnay barnaamij la yidhaahdo training private security sectorska tababar aan samaynayno hubka in la baro qaabka ay isu ilaalinayaan in la baro xiriirka booliiska in la baro radio frequency-ga ay isticmaalayaan waqti gooniya inaan u samayno qaybta shanaad waxay ahayd shacabka iyo booliiska labadaba internal healing wax la yidhaahdo in laga nadiifiyo aragtida xun oo keenaysa khilaafka u dhaxeeya shaqada dambi ka hortagga iyo booliiska oo wada shaqaynta xumaynaysa doorka uu booliisku ku leeyahay oo dhibaatada uu booliisku ku leeyahay in laga nadiifiyo oo tababarka asaga lagu horreysiiyo steepka labaadna shacabka in laga nadiifiyo marka laba qaybood bay iskugu jirtaa internal healing boolisku dhibaatooyinka qaybta uu ku leeyahay in laga nadiifiyo qabaleeyada xafiisyada meelahaas kale oo dhan waxyaala tabasho badan baa jirta daad tabasho waxaa laga yaabaa inaan loo kasaynin inta badan saraakiisha qaarkood ama xafiisyada hoose qaarkood inaanay u kasaynin ee ay ka timid wax la yidhaahdo traditional service wax la yidhaahdo wax la caadaystay kadibna ninka booliiskana qalad u arkaynin shacabkuna aanay qalad u arkaynin inta badanna ay ku qasbaan booliiska shacabku inay booliisku sidaa u shaqeeyaan asagoo raba inay hawshiisa fududeeyaan arrintaa inaan ka nadiifino qaybta ugu toddobaad waxa weeye building clean center future in la dhiso mustaqbal nadiif ah oo bulshada himiladeeda iyo booliiska waxqabadkiisaba heerka aan u baahnaan ku gaari karno in la dhiso oo la yidhaahdo building for clear future wax la yidhaahdo mustaqbal wanaagsan in la dhiso marka waxaan ku noqonayaa barnaamijka la yidhaahdo sara model tusaale afar qaybood oo muhiima baan u kala qaadnay afartaa qaybood waxa weeyaan horta marka ugu horeysa inaan samayno information gap inaan meesha ka saarno xogtu maqnaanshaha xogta waxay keentay dhibaato fara badan oo aan waqtigeeda lagu gaari karin dembiga in laga hortago
shaqadaanina ma aha dembiga in laga hortago waa dembigu intaanu dhicin in laga hortago kadib maxaa lagu gaari karaa dembigu intaanu dhicin in laga hortago waxaa lagu gaari karaa bulshada iyo booliiska oo ilaa heerkii loo baahnaa u wada shaqaynaya awoodda bulshada oo aan isticmaalaana 100% waxay ka faa'iido badan tahay booliiska kaliya oo isku daya inuu asagu iski keligii uga hortago dembiyada taas natiijo waa lagu gaari waayay meel walba kulliyadaha ilaahay erdegan ilaahay federal waan isla xaqiijinay shacabka iyo booliisku haday kala maqan yihiin oo aanay iskaashi iyo isku xid wada shaqayn aanay lahayn 1% xataa dambiga laga hortagi karo qaladku wuxuu ahaa systemkii hore oo la soo dhaafay intaan isbedelku imaanin waxaa jirtay wixii ka dhacay wadanka waadogay wixii ka dhacay wadanka wuxuu sababay annaga iyo shacabku inaan isu jirsano cadaaladu meesha ka soo baxdo iyo meesha u dhacdo arrintii daraasad markaan sameynay 18 step oo caqabadaha baan tirinay kow booliisku hadda ka hor iminka isbedelka cusub booliiska dib baa loo soo nooleeyay rejuvenation wax la yiraahdo baa lagu sameeyaa ayagoo oo baaba'ay oo la baabi'iyay oo saraakiishii iyo mas'uuliyiintii heer deegaan oo dhan iyo heer gobol meel walba jeelasha lagu guray intii dhaqdhaqaaqayso shaqaynaysana la kala diray ayaa isbedelku markuu yimid baa dib loogu yeeray war soo ururiyay aad baa looga farxiyay xaqiiqda hadii laga hadlay isbedelku faa'iido badan buu noo sameeyay dalkeenana wuu u damqaday baa la oran karaa annaga moraalka iyaga waxa lagu sameeyay darajooyinka baa naloo kordhiyay mushaaraad nagu filan baa naloo qoray idinku marka waxa la yiri maadaama aad professionalski tihiin caqabadihii inaad soo urtaan caqabadihii baan raadinay caqabadihii waxay noqdeen nacaybka ugu faraha badan magaca police la yiraahdo inuu sameeyay laakiin sideen u sameeynay annaga waxaana laga dhigay criminology annagu criminal protection baan ahayn soo maaha annagii baa dambi galiyayaalna laga dhigay oo waxaana loo isticmaalay gacmaha yagii inaan ku fulino bulshada inaan ku dhibaatayno wax dhacay bay ahay ma baantay magaca iyaguna isticmaalaya ninkaasi waa police baa la lahaa kadibkeed in badan ayay bulshadii naga fogaatay marka ka bacdi waxaan ka soo bilownay annaga oo saraakiisha heer commission heer gobol ilaa heer deegaan ilaa heer qabale annagoo iskaashanayno shacabkii inaan wacyigelin badan ku sameeyno wax la yiraahdo gudiyada la talinta madaxa banaan wax la yiraahdo inaan sameeyno oo ayna dhexdhexaadiyaan shacabkii annaga oo ay yiraahdaan shacabkii annaga ay yiraahdaan war boolisku kii hore oo idin dhibaateyn jiray maahe soo dhawaada oo aan wada shaqayno wax badan bay arrintaasi ka bedeshay booliska dalkaana deriska waxaan u qaaday dambiga dhacay mikiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaan u diyaarsanahay booliska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale waqabno baryahan ugu dambeysay wada qorshayaal iyo istaraatiijiyado kala duwan oo bulshada looga qayb galinayo sidii meel looga soo wada jeedsan lahaa ka qaybgalka arrimaha nabadgelyada ee deegaanka laga qabanayo arrimahaasina looga baahan yahay bulshada deegaanku inay qayb libaax leh ka qaadato وهجا أخيارت شرفت عليها وده ستة كان نقرأ صلوا برنامج كذي تطبيقات كان سكوحي كبوليس يبلشدنا انتهى إنه يجوجو برنامج كواحد لسه عسيني أنا وعيق أحمد بوحة وكمرضي فرصمدي صاحبك عبد الناصر سرار وهبيتي مختار عبدي وبهذا ورباهينتا كوميش كبوليس كدولة ديجا كصومالي ده ويسكت دبرو دي كلها في السدايو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.